sawir gacmeedku waxa uu ka mid yahay farshaxamada Soomaalidu ay caanka ku tahay waxaana dhalinyarada Soomaalida ku soo badanaya dhalinyaro ku shaqeysta iyo kuwa barta xilligan sawir gacmeedka kani waa Cabdifataax Sheekh Faarax oo lagu naanayso Maskax Artist waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa barashada sawir gacmeedkana waxa uu bartay yaraantiisa kaasoo xilliyada uu firaaqada leeyahay iyo goobaha waxbarashada dhexdoodaba ku mashquulsanaan jiray sawir gacmeedka ilaa iyo haddana waxa uu xiiseeyaa ku sawirista dadyowga caanka ah madaxda jawiyada dabiiciga hidaha iyo dhaqanka Soomaalida halkanina waa hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waxaanu booqannay xilli uu ku mashquulsan yahay sawir gacmeedyo uu hal-abuuray ugu horreynna waxaan weydiiyay qaabka uu soo xusho sawirada iyo caqabadaha uu la kulmo imka caqabadaha markasta hadan ay baxda farshaxanada markasta nortaan waxa weey waxaan joognaa sheeganay wadan inta badan farshaxanka aad lagu xuseen marka taasoo keenaysa in agabkiisa heleen waxa laga yaabaa imka halkiisa wada sawirsid intaasoo hawlana soo gashid kalaradii wadanka ka meelsid qalabada kala duwan noqdada ka meelsid waxa laga yaabaa inaad wixii caadiga ahayd dadkeena caadiga meelaha jooga ku sawiraan inta dalweedo aad dhaqan kala sameystid aad wax ku sawirtid taa caqabadaha inta badan ugu weyn horta waa caqabadaha nimka sawir kala sawirkan waxa weeyaan waa goobi taariikhiga Selac tambalada Selac inta badan sawiraan bal soo qaada kamera laakiin wax soo diibarayna farshaxan ka sawiro ana xasuusna ka reebo sawirkan kale waxa weeyaan waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan jeclaystay maadaama ay madaxweynaha sawirka aan sawiro waxaan jeclaysan lahaa inaan guddoonsiyo sawirkaas kale waxa weeyaan waa sawirada dhaqanka waa wareer guura waa awraran sawirkan kale waa agabkii dhaqankii waa dhiili sawirkan waxa weeyaan waa Adna Ismaaciil sawirkan waxa weeyaan waa mudane Xirsi sawirkaas kale waa sawir waa dhaqana waa inaan xiran toobkii dhaqanka insha Allah maadaama yihiin sawirada lagu xiran yihiin ay dhaqankeeni goobi ugu qurux badan wadagan yihiin sawirada lagu xiran yihiin insha Allah waxaan jeclaan lahaa inaan exhibition lagu qabto aan ummadada la wadaago sawirada qurux badan leh iyaguna ay la daawadaan ilaa arkaan hiigsigiisu uu dheer yahay hamigiisuna waa inuu dunida la wadaago hidaha iyo dhaqanka Soomaalida goobaha taariikhiga ah iyo jawiyada dhulka Soomaalida oo uu ku gudbinayo sawir gacmeed waxaanu rajaynayaa inuu mustaqbalka ka qayb galo tartan caalami ah oo uu ku matalayo Soomaalida farshaxamiistahan Maskax Artist iyo kooxda la qaban qaabinaysa barnaamijka ku soo bandhigayo farshaxamada uu ku sameeyay mid kamid ah qolka guriga uu ku nool yahay ayaa hadda waxa ay diyaarinayaan sidii ay ugu diyaar garoobi lahayn xafladaasi sida muuqaalkeedii ka muuqatana farshaxankii uu diyaariyay ay ku rarayaan gaarigan oo ay geynayaan goobtii ay bulshada kula wadaagi lahaayeen halkan oo hotelka Garden ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka socota munaasabada uu ku soo bandhigayo Maskax farshaxankii ay wada daawareyneen ku soo sameeyay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay dadyo fara badan oo xiiseynaya inay daawadaan isla markaasina ay ka bogtaan muuqaalka farshaxanka ee uu khibradeeyay Maskax guri kasta oo Somaliland waxa weyn kadar baa u yaala oo aan ku soo iibsano $30 $40 $50 qaar ba $100 lagu soo iibsada marka inaynu maxaa halkaynu dad kale ka iibsanayno aan caruurteena aynu ka iibsano aynu guryaheena ku sharaxano waa muhiim qaran wuxuu dhaqaaqa xidigaha u dheelma markuu dhumu awoodiyo dhalin xooga yeeshe markuu dhumu awoodiyo dhalin xooga yeeshe وعيد مستشفى يسوي قادة حمسة تاني تلفزيون كيو غير سلام